kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni dhalinyarada oo xiligan oo kale aad ka daawataan TV-ga deegaanka Soomaalida ee SR TV. daawadayaal toddobaadkan barnaamijka dhalinyarada waxaa marti iigu ah Xasan Cabdi Axmed oo kamid ah dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida isla markaasina ku magac dheer dawlo wuxuu kamid yahay dhalinyarada ku dhaqan caasimadda deegaanka Soomaalida waana dhalinyarada hal abuur kale ee dabcan muddooyinkii ugu dambeysay ku soo badanaysay deegaanka Soomaalida. barnaamijkuna inta badan waa barnaamij dhiirigeliya dhalinyarada soo korayso haday noqoto dhanka maskaxda iyo waliba sidoo kale hal abuurka dhanka fanka iyo qaybaha kala duwan ee dhalinyarada hal abuur kale ay sameyn karaan ama u baahan in dabcan loo soo bandhigo hal abuurkooda iyo waliba sidoo kale wax qabadkooda. saas iyadoo tahay barnaamijka waxaan toddobaadkan marti inoogu ah soo hore ugu sheegaba Xasan Cabdi Axmed Xasan Dawlo oo ku magac dheer isla markaasina kamid ah dhalinyarada deegaanka. dabcan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa gobayo iyo maansooyin uu ka tiriyay haday noqoto dhanka la dagaalanka qabyaaladda iyo waliba sidoo kale dhiirigelinta dhalinyarada calanka iyo waliba qaybo kala duwan ee dabcan qoseeyo hal abuurnimadiisa ayaan dabcan aan ka wareysan doonaa Dawlo oo ku magac dheer Xasan. markaas aad u mahadsantahay Xasan ama Dawlo oo dabcan marka hore fursadada qaaliga ee dabcan la wadaagtay aad baan kuugu mahadcelinaynaa. waxaan marka hore ka codsan lahaa Xasan ama Dawlo ninka la yiraahdo waa kuma bal annaga iyo daawadayaasha waxaan jeclaan faham buuxa aad soo sharaxaysid dabcan ay bulshadu ku fahanto. Xasan Dawlo ama Xasan Cabdi Axmed waa aniga gobolka Jarar ayaan ku dhashay gaar ahaan magaalo yar oo la dhaho Cobole aado ano yar baa laga keenay waxaan ku koray degmada Qabr Bayax halkaas oo aan ku soo qaatay waxbarashadayda ilaa 12 xagan jigjiga waxaan u joogaa waa jaamacad degree program oo ka fildiga aan barto waa HRM ama Human Resource Management. waxaad sheegtay dabcan in halkan wax ka baratid hal abuurna aad leedahay sidaan ka warqabana dhowr gobol oo hadda ka hor aad la wadaagta ay jiraan hal abuurka nin dhalinyaro hal abuur labaatay hal abuur muxuu ka dhigay marka hore bal erayga inoo sharax hal abuur waxa weeyaan macnaha dhowr macna ay yeelan kartaa hal abuur badana waa maskaxiyan ana qofku inuu hal abuur la yimaado nooc doonaha ahaatee waa qofku oo maskaxdiisa ka shaqaysiiya ama shaqooyin cusub oo hal abuur macnaha hal abuur baa la dhigi karaa shaqooyin cusub la yimaado. hay adiga waqtigii ku dhalatay in aad tahay nin hal abuur la oo wax sameyn karayo goormeed isku aragtay waxaan misooleys qoyskiina ayaa dabcan iyagu ay jiraan kuwa hal abuur la oo dabcan gobayada iyo maansooyinka kala duwan sameeyo misooleys adiga ayaa kaliya waqtiyada ay kugu dhalatayna waqti ma heed ani horta hidiraac waa la dhihi karaa waa baayana uu gabi jiray ilaahay u naxariista walow uu ahayn dadkan ku soo shacbaxa magaalooyinka iyo gabayada macnaha caanka ah ay noqdaan haddana baay uu gabi jiray waxaan namda kale qoys waliba ay saddex macallin bay leeyihiin macallinka koowaad oo ah aabba hooyada iyo curadka reerka. qof wiilka curadkii wuxuu eegtaa talaabada aabihi caruurta yaryarna waxay eegtaan talaabada hooyadood iyo curadka. marka anigu dadaal badan baan ku sameeyay aniga oo yaraantayda xilligii aan iskuulka dhiganayay gabayada aad u xafid jiray gabayada macnaha abwaanada qaabka ay ugu aasaasan qaabka loo alifo waxyaabo badan macnaha dadaal aan ku soo sameeyay marar badan oo isku dayay inaan wax abuuri karo oo isku dayay jiray anoo yar inaan macnaha geeraara jacayl tiriyo inaan waqtiyada aan ku bad ciyaarano oo kala aan dhalinyartayda aan heeso yar macnaha geeraar ahaan oo kala aan ka sameeyo kuwaan iska soo horjeedno kala heeso iyagana aan macnaha ku yar dhalaceen macnaha iyaduna waan sameyn jirnay. marka adoo yar baan isku arkay oo ka waatan inta badan adigu maxaad ka hadashaa gobayadaadu maxay qusayeen inta badan ma jacayl baa ku jiro maxaad ka hadashaa bal inta badan aanu gabayadayda waa gabayo wadaniyada ayaan ka hadlaa badanaa macnaha geedi socodka bulshaduna halka ay marayso ayaan kaga hadlaa iyo halka ay tahay macnaha inaynu
hiigsano mar walba dareenkayga badan wadaniyadaasaan aan aad iyo aad ugaga hadla oonan jecelahay inaan dadkayga dhiirigeliyo dhalinyarada aan dhiirigeliyo waa kaa marka laga yimaado maanta oo dabcan aad tv-ga la wadaagtay inaad tahay hal abuur wax samayn karaa tahay ma jiraan hadda kahor meelaad kusoo bandhigtay gobayadaada oo aad ama aad dad kaala qayb galay ma jirtaa haa barnaamijyo badan oo barnaamijyo xataa aan soo bandhigno dhalinyarada u qabanaa jirta annagoo waqti xataa waxaa jira dhalinyarada saymo oo kale martigelin noo sameeyeen anigii 2 wiil oo kale oo aan xilligaa bandhig isna aad muhiim u ah maamulka ay ka soo qayb galeen baa jiray dadku inta badan waxaa jiro niman rugcadaa oo dacwan wax ku takhasusay gobay markaad samaysid hadda gobay aad samaysid ama hal abuur aad leeyimid wax cusub leeyimid ma jiraan dad aad kala tashatid gobaygan inuu yahay wax suurtagal oo dabcan soconaya iyo in kale ma jiraan dabcan way jiraan macallimiin baan anagu leeyahay in iska socdo macnaha ma ihi macallimiin aan waqti geliya jira macallinkayga maxamed catoosh oo macallin caana nin caana abwaan caana oo la yaqaano heestii xataa waa ninkii sameeyay heestii dhahaysay geelaygu 5 buu ahaa dhowrka wadan la iskaga jawaabayay abwaan food ciro oo kale abwaan xuseen sheekh beexe abwaano badan oo aan aad iyo aad ugu taxanahay jiraan ku xidhanahay mar walba waxay ila tijaabiya waka waxaan ku soo noqono dhinaca gobayada aad samaysay waxaa jira dhowr gobay oo halkan kaaga hayo haday noqoto dantaal calanka iyo qabyaalada aad kaga hadlaysid isku duubnida aad kaga hadlaysid bal waxaan ku horeyn doonaa gobayga dhalinyaradeena iyo dadkeena gebi ahaan dhalinyaro iyo waayeelba aan kaga hadlayo macnaha sida ay jiilasha inala midka ay horumar u sameynayaan sida ay dadkeena la markii ay horumar u sameeyaan iyo sida ay dadkeenu Soomaali ahaan aynu u dhaaflaan qabyaalad reehibal aynu u dhaaflaan ayaan kaga hadlaya macnaha oo aan leeyahay dadkeenu talaabaha qaadan sida jiilasha inala midka haynu iska dhaafno qabyaalada iyo reehibalka iyo waxan marka ereyga dantaal de wax kala dhiman oo kala ayaa dabcan macnihiisu dantaal macnaha waa dantaalo Soomaalideena dantaala man ka wada oo qabyo ah marka intaas macnaha inaga qabyada haynu dhameystirnaan leeyahay gobayga bal ama maansada waxaan jeclaan lahaa inaad anaga daawadaasha nala wadaagtid waa sax maansadan aan idila wadaagayaa waqti ma curata markii hore maansadan xilligii xukuumadda ay kala xukuumaddii hore dhacday xukuumaddan cusub ay soo xaga dhigatay dadkeenina ay macnaha hadafyo la iman waayeen ay macnaha siyaasad ku mashquulaan ayaan macnaha soo bandhigay marka waxaan leeyahay dhaqan weeye maansadu aan ku dhaadanayo dhaxal baan u haystaa marna dooni bay tahay waxay raacday dhiigooda waxay ku milan tahay in baan dhugan warkayga in baa dhaafto nacabe in baa dhimashadayda iyo dhibkaygaba ku faraxda anna dhaayahayga iyo dhagahan ka awtaa waqti dheer ma siiya orod baan ku dhaafaa adduunyada dhantaal iyo dheeli lagu ogyahay oo dhamays yeelan mayse dhibi hadduu ku haystana durba la isma dhiibe dhafandhaafka waayaha waa loo dhabaradayga dhabbada horumarkeenana dhalinyaro iyo waayeel waan ka dhoohanahay oo isma dhaanta noqonaye hadmaan dhaaya furanaa dhigeen baa dayax iyo xidigaha ku dhaqano dhadhaabtii hortaagneed cilmi ay dhigteen iyo ilbaxnimo ku dhaafee hadmaan dhiiranaan iyo dhumuc yeelanayo dhiig sokeeyo diidna oo dadkeenu waa kuwan reer un isku haysta ree hebel sheekadu dhaafi laadahay ninkii maamule wadaniyad macnaha xil ku qaban lahaa ree hebel baa lagu qiimeynaya macnaha dadkeenii oo dhan ninkii hadaf fiican waday xataa waxaa la dhahayaa ninkii qiimeynaya Soomaaliga wuxuu ku qiimeynaya wuxuu dhahayaa wiilkan reabtiga muu yahay may tolka muu yahay may macnaha reeyada macnaha intaas mabda marka uu ka dhax waayo wuxuu dhahayaa waa beenaale ee ma eegayo mabdii uu ka hadlayay macnaha reernimo ku taageer isleeyahay macnaha waxay ka hadlaysaa reernimada in laga tago oo macnaha qofkan talaabadiisa lala qaado la taageero nin walba oo shacabina uu taageero siiyo marka waxaan leeyahay dhigeen baa dayaxiya xidigaha ku dhaqano
dhadhaabtii hortaagneed cilmi ay dhigteen iyo ilbaxnimo ku dhaafee hadmaan dhiiranaan iyo dhumuc yeelanayon dhiig sokeeye diidna warshadaha dhulkoodil marka badda dhex joogiya tareemada dhaadheer dhuumaha biyaha iyo dhismayaasha loo bogay rag dhigeenaa curiyo qayrkood ku dhaafee maxaa dhibay dadkeeno ay dhiilada shisheeyaha dawarsiga ka dheefaan intaa shay aynu arkayna maanta dunida ku cusub dunida macnaha ku raagtay weligoodba macnaha la isticmaalaya manaafacaadka leh waa rag inala mid ah oo hal abuur la yimid kartidoodii isticmaalay macnaha sida dadkaasi oo kale inaguna haynu kartideena isticmaalno waxaan leeyahay aynu wax abuurno wax kasta wax waynu samayn karnaa waxa aynu saameynana haynu isku taageerno ayaynaan cidna ku qiimeyn hadday dawlad tahay hadday wax kala tahayba macnaha aynu kartideena isticmaalnaan leeyahay marka waxaan idhi warshadaha dhulkoodil marka badda dhex joogiya tareemada dhaadheer dhuumaha biyaha iyo dhismayaasha loo bogay rag dhigeenaa curiyo qayrkood ku dhaafee maxaa dhibay dadkeenoy dhiilada shisheeyaha dawarsiga ka dheefaan qabyaa dhulkeenna taale soomaalaay hoydhoohanay dhurwaa iscunayaay soomaalaay hoydhoohanay ma dhaxalbaad u leedahay dhariqda iyo colaadaha intaadii ku dhowran lahayd dhulyahow kugu faani lahayd dhex jooggaagay naceeno dhoofayaabay raajaan waa hadafka inagu quflo nin walba oo Soomaaliya maanta bootooyin la iibsanaya hantiya macnaha waxa la dhaqayo oo dhan waxa hadafka ka dambeeya waxa weeyaan waa berito la had xaraashtidood ku dhooftay oo dadkeeni wada geedibeen ka nahay marka dhulkeeni inaynu jeclaano oo aynu keenan wax ka soo saarna ayaa ka qiimo badan inaynu dad shisheeya uga hoos noolaano qaxooti ahaan teeni baan ka ordana marka qabiyaa dhulkeena taale Soomaaliya hoydhoohanay dhurwaa iscunayaay Soomaaliya hoydhoohanay ma dhaxalbaad u leedahay dhariqda iyo colaadaha intaadii ku dhowran lahayd dhulyahow kugu faani lahayd dhex jooggaagay naceeno dhoofayaabay raajaan maamulkii dhex joogay dhowranayay ciidana in baa dhibaysa maantoo dhambaalkoodu waxyeeliyo dhegta midaan u roonayn dhabarjab inagu yahay oo maamulkii waxyaabo badan inuu abuuro rabay bulshadeena wax badan ku soo kordhiyo rabay wax badan inuu inaga joojiyo rabay umba macnaha aflagaadiyo xumaan aynu ku wadnaa iminka waxaan ka hadlayaa dhulkan ballaaran ee baaxadda leh oo Ilaahay ina siiyay Soomaali ahaan dhulalka ugu qanisan ayaynu haysanaa dawlad deegaanka laakiin waynu garan laanahay qoomiyadaha jaarkeenu buuraha dhagaxaanta ah ayay carro ku dul guraan si ay dhul beeraad uga dhigtaan inaguna dhulkan ballaaran ee baaxadda leh ee aynu haysano ee aynu garan laanahay ayaan macnaha ka hadlayaa waxaan leeyahay dhagxumaa la ooyaa dhan walbaba markaan dayo dhul barwaaqa taaloon dharaar qura la waayeen biyo dhowrsano wacan cagafyadu dhammaantood dharabkaas ka buuxaan dhulka qodashadiisa dhammaan haddaynu diidnay saboolnimo aan dhammaaneyn faqri inaan ku dhaqnaanaan dhamow aynu yeelnay dalkaygow dhaliilaha kuwa dhiiran oo nacaa inay kaa dhasheen adi miyaa lagaaga dhaarmaray oo macnaha jiilashii hore hadii ay af uun ku mashquuleen aabayaasheen iyo awowyaasheen hadii qabyaalad uun ku mashquuleen dadka macnaha jiilkeena maanta soo kacay ayay muhiimadu tahay dadka aan la hadlayaa dad dhiirino soo kaco karti leh oo dhulkeena difaacda oo dhul beereed ka dhigta oo manaafacaadka ay ka soo saaraan dunida xataa in loo dhoofiyo ay suurtagal tahay macnaha inay ka dhashaan miyaa looga dhaarmaray baan leeyahay dalkayga oo dhaliilaha kuwa dhiiran oo nacaa inay ka dhashaan adi miyaa lagaaga dhaarmaray haliyada dhulkayga uu iga reeba dhaxal guud doodaan warkiisii iyo sayidkii mid uu dhahay dheh sangub dhiiranaantiisii iyo kartidii cali dhoox dheh raage dhowrsanaantiisii iyo yamyam dhammaystirkiisii dheh macalin aanan dhaafin food ciro dhambaalkii dheh maxamed catoosh dhugashadiisana dhafaruur macaankee dheh wiilwaal dhaqankiisii iyo dhaantadii axmed budul dheh arday aan dhibayn oo dhulka hooye jecel dheh mujtamaca nin dhowriyo dhul barwaaqa taal dheh waxaan halkaa kusoo halqabsanayay macnaha abwaanadii hore ee taariikhaha laga reebay wallow aanan anigu abwaan ahay arday baan ahay macnaha laakiin hadafkaygu wuxuu yahay inaan macnaha noqdo nin taariikhda ragga galay macnaha bedeli doono oo soo garab geli doona waa hadafkaygu sida uu yahay marka wallow aan xataa waxaan halkan ku sharaxay macalimiintaydii maxamed catoosh oo kale food ciro oo kale caawe axmed budul oo kale marka waxaan leeyahay afartaa ma dhoobay ma dhigay halkoodii dhiirigelin ma daayay dhageysta maanta dhufayskii ka soo baxee waxaan la hadlayaa waa dhalinyaradeenna ku diba joogaya ku dal joogaba
micnaha Soomaali waa Soomaali nin dawlad deegaanka u dhashay mar hadduu yahay micnaha waxa aan kula dardaarmayaa danta guud ku dheerada qof walba dhankuu jiro dharag iyo la seexana cilmi dheer ha raajo dhalaanka iyo caruurtana ka dhaadhiciyay inuu jirin dhulkeena wax dhaama micnaha aabayaasheen iyo ayaa inaga waxay nagu quflan inay dhoof iyo Mareykan iyo Yurub uun micnaha ay nolol taaleeteen ayna oolin kuwii nasiib u helay ee tagay waxa aan kula dardaarmayaa deegaankoodii inuu u baahan yahay cilmi ay raadsadaan wax bartaan iyo muruq maaliyo shaqooyinka blue color workers kala dhaho oo ayna ku mashquulan oo ay si fiican xirfadiyo cilmi inta ay soo bartaan deegaamadooda ay ku anfacaan kuweena inoo dhalanaya halkan joogana inaan lagu quflin mabdii dhoofka Yurub iyo Mareykanka deegaankiina difaac la dhaho halkiina wax ku barta in la dhaho ayaan kaga hadlayaa markaan halkaas waan sii waday waxaan leeyahay inaha oo waxyaabo ii iftiimay aniga oo hurda aan qalbigayga ka ararkay aan niyadeyda aan ku riyoodo baa jira waxaan leeyahay saadaali dhiirisaan dhowr habeen ku elaladay dhirtooda magooshiya nabad dhalatay baan arkay shidaalkii dhulkeena oo faqrigii dhameeyay iyo dhool iyo gubaan arkay dhalintiyo barbaartoo dhayarsiga nacdaan arkay oo ay dhammaantood horumar ku dhaqaaqeen agoonta dhulkeena guryo loo dhisaan arkay jigjigiyo dhulkeena loo soo dhoofayaan arkay yaqiintoo dhabowdo la iswada dhunkanayaan arkay masjidada dhulkeena la wada dhisaan arkay culimadoo la dhowro la dhuganayaan arkay maansada dhantaal waaga intaa maansadaas markaad tirisay dhow wadaad soo martay waxaad ka hadashay isla isku haystaad ka hadashay kadib waxaad ka hadashay muhiimadda dhulkeena ayaa taabatay dhalinyarada in la dhiirigeliya taabatay waxaad kaloo ka hadashay riyadaadii baad ka hadashay oo dabcan aad tilmaamtay in wax badan aad rajaynaysid in dalka iyo deegaanku ay isbedelaan maansada markaad tiri curusay dadka aad la wadaagtay wax talooyin oo kaaga soo baxay ma jiraan dadku marka aad mabda'yo muhiim ah aad u soo bandhigto waa lagu dhiirigelinayaa karti baa lagu siisanaya su'aal lagu dhahayo dadaal macnaha mabda' fiican baad wadaa dad badan oo la wadaago ugu soo dhiirigeliyay baa jira waxaad moodaa maansooyinka tirinaysa inta badan inay ay u badan yihiin dhoofka iyo weliba dadka tahriibaya marka maxay tahay waxyaabaha inta badan maansadaada kusoo celcelinaya dhinaca dhoofka iyo wadamada shisheeye in dhalinyarada ay tagto waa hadafka macnaha Soomaalideena ku qufulan ee la doonayo in laga tartiro dadkeenu dhulka inay aaminaan keeno inuu kaas ka qiimo badan yahay ka dad in la mid yahay inay dhisteen waxa cadcadayna arkayno fooqaqa waxa aynu arkayno oo dhani rag in la mid inay dhisteen inagana sidoo duuyi macnaha inaynu u dhisano inay raganimo tahay marka waxa weeyaan keenaynu aaminaan leeyahay waxaa jirta gobay ama maasaan kaga hadlaysay qabyaaladda maxay tahay soobaad ku curisay maasadaas iyo goorma curatay maasadaas iyadna waxaan curiyay xilligii kala guurkii nidaam yar oo macnaha ina soo dhex galo mar lahaa 4.5 macnaha in deegaanka dhan qabiil kasta laga qayb geliyo shaqaaleysiinta iyo san qaybsiga oo macnaha taas ku sii dheeraatay dadkeeniyo xataa dadka qaarkood rabshada ay u ridayeen maxaan wax u heli weynay oo dadka waxa ridaya maaha bulshada iyo dadkan rayadka dad siyaasiyiin u adeegsanayay inay isku diraan deegaankii iyaga oo ku kicinaya kursiyadeenii baa la xoogaya maxay macnaha mabda'yo noocaasiya marka gaaway ma halkan waa macnaha iska geerar waxaan macnaha xilli aan siyarkiisa aan kaga hadlay aan dadkeena macnaha dhalinyarada ayaan xilliga barnaamij u qaban dhalinyartan kaga hadlayay dhalinyaradan ku baraarujinayaan ku lahaade macnaha ruuxaas noocaas macnaha reehbel wax ku raadinaya nin Soomaalinimo iyo karti inuu wax ku qabto wax ku raadinaya maahe waa nin macnaha liita oo aan waxba wadanka u soo wadine xataa walaalka haduu yahay ha ku taageeri ma laha marka waxaan lahaa dadkaygow dalkaygow gabay da'weyn baan wadaa ka soo galay daaqilkiya laabtee duxbu leeyahay udgoon waana daruur curatay oo lagu dagaaye dameerkii leeyahay uu dhigan wuuna deeqi warkaygu door ninkii ah baa garan dadaalka maamulkeena wacane waa maamulkeena sinaantii iyo cadaaladda keena door ninkii ah baa garan dadaalka maamulkeena wacane dhalintii duruustii iyo baratay digtoornimada dhalintii dadaalka u gashay jahliga dabargoyntiisa hal dooradii ducaysnaa ballankay daraata qaadeen doog iyo ubax buu dhalay dambar loo dhan yahay
darxumo maamulkeenana ay naga reeba diif iyo haraad ba-ane duqaytidii iyo markuu culamaa uu diinka la tashaday uu danta guud iyo usoo dhigay deegaanka hiigsigiisa waatii duca loo dhan yahay dusha laga saaray daruuri inoo curatay durduro waaweyn buu dalka heluu daayin inagu manaystay dhulka doogii kasoo baxay dareemadii iyo cawskii dastuurkay sare u qaaday daacadnimo lagu midooye halkan dhalinyaradii baan kula hadlaya waxaan leeyahay dhalinyarada maanta ay hadal danteenan docdan aan ka odhana daacadii dhageysta qabyaaladuu duuba oo warkeeda daaya kowdhe soomaalinimo ka dagaa daacadii nooma matale ogaad oo ninka macnaha xilku raadinaya soomaalinimo wax ka hooseysa waxaan leeyahay soomaalinimo ka dagaa daacadii nooma matale ogaada ibliis weeye yuunina kala dilin dan quraynu leenaho nabad baa ku dayasho leh dagaal wiilal uu dilo mooye kuwa uu dahado duni laguma arag duufaan weeye dubidhac mooye dalag lagama macaashe duruufo ba-an iyo dil iyo dhacbu sababa haddaan laga digtoonaanin danaystana ree hebel baynu nahaa tilmaan aan duugoobaynin u ah abid macnaha taariikhda maanta keliya ta maahe waa taariikhda soomaaliyeed macnaha maamulada aynu soo marnay meel kasta ha ahaadee macnaha ninka ree hebel wax ku raadiyaa inuuna nin raga ahayn macnaha karti leh macnaha weligeed bay soo ahaan jirtay macnaha waxaan leeyahay dhalinyartii baan usii macne leeyahay maadaama oo maans ahaan ama gabay ahaan wixii aynan badanaa ku fahmin manasi yar cadcadaysle waxaan idhi hadday kaa dadan tahay anaa ku dareensiina daacadii dhagaysto ayaantuuna dab shidanin buu duhur kula shiraa duqaytidiiyo dumarkuu dugaashadaa danihiisa ku gaadhaa dhalintuu dagaal ugu baaqaa kursiyadeena duulaan lagu yihiy hadba erey diihaal abuura diif iyo haraad beela ayuu ku daaduumiyaa asaagii kun daacadoo daayin ku xidhnaaba docdaasi ku iilgeli qaarna dhiig ayay daadin hamigoodii durugsanaabaa kala duulayo dunidana hilmaame ninkaas hadii uu danihiisa macnaha hadii uu gaaro halka uu rabay kaba soo qadamo wasiirnimo ama madaxweynenimo ama xilal muhiimada xilalka macnaha uu reehibalnimo ku raadsanay haduu la gaaro qaabka uu idin la dhaqmi doonaan hadana idin si sharci baan leeyahay dhalinyartii macnaha oo fiirsada waxaan idhi haduu danihiisa gaaro daaradii balaadhay tolka darmada shaaha looga dari jiray deer cad baa dusha lagaga meeranayo telefoonada la dansan waardi tolka diidan buu istaba dhigay daayin abadkiye inina xaafada ilaalin duqaytidaaya bihi dirqu ku galaa docdii lagu wada xaajoon jiray imakaana iska hadlaya macnaha dhalinyaro waxba idinma dhaamiyo macnaha shucuur iyo dareen kicisay baan ahay macnaha idin la mid baan ahay baan leeyahay oo macnaha qab iguma jiro waxaan leeyahay inkastoon da'diina ahoon daala dhacaayo inkastoon daciif ahay dunidana kale ku ahay nin ii daran dabaqyadii inay dumaan daayin ugama tuugo ninii daran dabaqyadii inay dumaan daayin ugama toogo wadani daacadaan ahay isku duubni guud baan jecelahay dadku inay ku midoobaan wata aad baad umahadsan tahay xasan cabdi axmed xasan dowlo aad baad umahadsan tahay waqtiga qaaliga noo hortay waan ku mahad celinaynaa daawadeelintaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhalinyarada toddobaadkan ood ka daawaneyseen tvga deegaanka soomaalida ee SR TV dabcan toddobaadka barnaamijka waxaa martiigu ahaa xasan cabdi xasan dowlo oo dabcan kamid ah dhalinyarada hal abuur kale ee ku nool ee deegaanka soomaalida aad baan ugu mahad celinaya waa daahir cali iyo kaameradii saaxiibkay abshir dhammaantiin isku duban daawadayaal barnaamijkan kulamada intaan mar kale hawada aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo